السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمد الصوماليين ميل بجوجتو waa salaamay waxaan rabaa halkan inaan ka cadeyno raggii Toronto joogay oo afraadada u geystay walaalkan Cawaale Aadan oo rabnaa inaan inta ka cadeyno saddexdii fanaan anagoo wareysanay nala daawada بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد ولا ليال سومالية من والبو جوجتين با وحان إلهي وان سلامية سلام شرفات سلام قبيد سلام فنان انت بوان نقول سلامية سلام تمركا كقدبو وحان هكا نصو فرستي أنا يقول وليجي فيديو لدوبة أو قف لغا حالي أنا وليجي دوبين أنا وليجي aan ka helin meediyaga ama Facebook ama waxay doonto ha noqoto aan waliga ka helin maanta xagan waxay soo fariisiyay waxay ugu obligeeyay ama igu qasbay inaan halkan ka hadlo aan fariisto on video aan duubo anigoo codkay ku duubay waxa weey arin aniga magacayga lagu soo daray arin fanaan walaalkayga in la oo laygu hor keeno oo laygu soo dir si laygu hor keeno in laygu darsado arintaasi waxa weyn waa arin uu maanta Cumar ka dhawaajiyay uu magacayga ku soo darsaday waxaan beeninayaa taas ayaan halkan u fadhiistay inaan beeniyo waxa weey anu Edmonton dana aan leeyahay ayaan ugu haray wax uu Cawaale iga baxsaday uu tagayna ma wuxuu aniga Cawaale lacag iga qaatay uu lacag la baxsaday la jirtana ma arinta horta been baa ku sheegteen waliba Omar baa arinta ka dhawaajiyay cid kale ku haysto ma jirto oo media ku soo fadhistay Omar arinta waan beeninayaa buu Cawaalana u muujiyay oo isagoo waliba si gaar ah maanta inta bilood in waddanka joogaba aan gurigiisa ka cunayay ka dhameeyay seexanay fanaan kale igu yimaada oo maanta ma jirin oo Cawaale ila qabta laakiin isaga ayaa iigula jiray ilaa haduu dhibaatooday hadii kaleba isaga ayaan wax la qabay waxa weey arinta horta been ayaa lagu sheegay ayaad ku sheegteen Cawaale waxba igala ma baxsan Cawaale waa walaalkay waxa uu qabtayna waxaan abaal u gudi karay ma wax weyn buu qabtay abaal weyn baan u hayaa midda kale anu ma jecli fanaan wuli Cawaale igu diray uu yiri fanaanka raacin waliga ma jirin laakiin imika arinta waxaan arkayaa Omar markuu videoga had soo duubaysay waliba aniga kula hadlay walaalkay videoga markaa soo duubaysay waxaad moodaa ina wax lagu digteen anigu digtay waxa uu naqaana ina wax lagu hingaadinay oo dheh laga leeyahay sida iyo sida dheh ina tiraadid maahan hadii aad Cawaale wax shakhsiga ku haysatid wax Omar ahaan ku geystay aad haysatid waad u tagi kartaa walaalkay waad wadiin lahayd waxaad media la soo fariisanayso waliya fanka waxa weey been baad ka wada sheegaysin dhamaantiinba nimankii nice urursaday anu runtaan in sheegaya anugu fanka waxaan jecel qof fanaana inaan ka ashkatoodo ma doonayo fanka qof fanaana inaan dhaleecayo ma doonayo fanka qof fanaana inaan xaasido ma doonayo wiligeena ma xaasidin mana xaasidi doono qof fanaana wiligeena ma caayin mana caayi doono qof fanaana waa walaalkay qof kasto fanaanana waan jecelahay waan jeclaan doonaa ilaa inta aakhira ka galay qof la igu diri karo oo fanaana ma jiro waxa weyn qof bil aadan aniga oo fanaan leeyma itiliisaynayo waliya fanaaniintu aniga waa walaalahay gibi family baan isku nahay anagu walaalahay way family baan isku nahay cid kale dhamaas ka xiga fanaanka Muqdisho ka yimaada Djibouti sahay uma soo qaadan jirnay fanaan ku soo tala gali jiray fanaaniinta maanta Djibouti ku aasan may aasin qabyaaladu kuma aasin fanaan ri Djibouti aasay fanaaniin Soomaaliyeed baa aasay oo Djibouti ayaka maxaladeen taxsidooda iyo aaskooga wada bixiyay fanaanku fanaan buu walaalahay bahashan imika la kala qoqobayo hebel media soo Cawaale waa fanaan la yaqaano waa fanaan Soomaaliyeed waa fanaan fankiisa Soomaali oo dhan gaarsiiyay Cawaale Djibouti kaliya uu heesay wuligi Muqdisho heesay Jigjiga uu heesay Hargeysa uu heesay meel kasto Puntland uu heesay gobol magaalo Djibouti gobol uu heesay laakiin waxa ku leeyahay Djibouti kaliya uu heesay Cawaale wuxuu ahaa fanaan qaraneed oo Soomaaliyeed oo adduunka meel kasto Soomaali joogtaba fanaan kamid ah weeyaan anu saanu haysto
وحبي سيدان قف لو ما إريدو قفك ولا الكايا وحلا يدي ورمخاتيك كفر متنا الله بحي أي الصومالي دي هذه هدي أضوح شخصية كويسة تد عمره ومار هدي أضوح شخصية كويسة وصور دعينا إنك ولا الك هدي إلهيا كاتها إنه واحد سميجي واحد يقول له سدا يسدا بس سميس هي بس أكو سميس شخصيا هذه واحد كوكو مسمين عدة كلو واحد كسمينه عد كاش كتوني سو إني ميديا كسفر استان بها وديك سفر السدين هذا أدو هذا الشيء ما هين لكن محمود جنسا إن الله قادم بيه إن الدهل القلية إن محسم القلية أنا يا أما هلا يقع عرض أما يا اللي يقع عرض أنا عوالي وولا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أمد الصومالية دمانتين وسلامتين waxaan rabaa inaan ka hadlo arrin aniga ugu saabsan daahir ahaan arrintaas oo ah in layga gatay heesta ratiga lagu xiray ratiga oo ereyadeeda uu leeyahay Khaliif Faarax Xayir أنا waxaan halkan ka cadeynayaa oo Omar uu sheegay in layga siiyay heestaas $1700 waxaan leeyahay waxba kama jiraan hees layga gatay ma jirto ani xawaalana wax ka dhashay isku malihin waa qof فنان walaalkayga oo legend ah oo marna saaxiibkayga ah marka wax ka dhashan isku malihin an alxamdulillah heesna ma gatay ilaa door 20 hees wada heesta abwaana badan oo far badan oo saaxiibadeyda oo isiyeen 5 ilaa 6 kamidana xawaalo oo laxka ii saaray insha Allah dhawaan ay soo bixi doonaan marka waxaan rabaa mar labaad saddexaad inaan ummadda Soomaaliyeed u sheego hees layga gatay أنا عوالة أذن عنك لا قدرني مجرته مركا وأنا ما سنتي. الرحيم أنا جوا محمد حسن محمد وقوم قاعد لكين بتشعله وحنا هالكن السلام يا أمود صومالية ملك استوى الجوان وحنا هالكن كعدين يا هذا اللي سلد أحمر أيه سوشيال ميديا أو بين أبورة وقصة سنة هستي اللي كتشعل أنا جا كتشعل يلحن كذا هستا واحد سميه أبوان يقول قالي محمد علاد ودق كندا قال عن ترنو واحد لحن كسميه معلم كيجا مرنا ولا كيجا مرنا الفنان كينو وين أو تقانان حوالي آدم واحد كلو هالكن كسي عدينا يا إن مجيجا يهستي ثقل دم لو استعمالي هستا سؤال كتشعل أنا كتشعل لحن كذا بين لقى شيء oo lagu sii afligaatay fanaankiina weyn Cawaale Aadan waxaan halkan ka sii cadeynayaa Soomaali Maxamed u sheegayaa Cawaale Aadan waa nin fanaan waa nin oo jecel dhalinyarada soo bixaysa fanka inuu gacan qabto aniga fankeyga iyo harkeyga maanta aan taaganahay waxaa kaalin weyn ka geystay fanaanka wada taqaanaan oo magaciisa yahay Cawaale Aadan هذا كنا سيدنا مربو وحنا هالكن وشيء أمود الصومالية وعدينا يا إن هستاس وتشعل أنا كتشعل لحن كذا سكله فنان كينوين Cawaale Aadan waxa kale oo kale nin sheegaya Cawaale Aadan uu ka weyn yahay wana ka sharaf weyn yahay laxan oo salahan inuu been sheegto isku qoro aniga jecelo akii jecelo heesta qaaday aniga cadeenayo heestan naas kale inuu saar laxanka Cawaale Aadan السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أمد الصوماليات آد بندي سلامي. كنتي وانا إذين كم هذا علينا سيدا شرفت بدن إذ أغفل عليسين إن وحي عياعي أيامها قلتك سكسو سعودي إن أفلقادة دي فوش حميد يويرك عبدا سيدا أغفل عليسين آد بهرتي كم هذا علينا إن قفكنا مرء بالبرتاي وأنا وراك لو برتها أما حمال لو برتها صدح يتوان سنضات من لبض يكون يشنتي إلى لبض يكون يسديد يتوانكي وحوي وقت إناف إلا يقبرته إن أنا هيقف وناكسن يقفهم وحن سعدان وحوري لا يوسو أركي ما كنت أدبا يديكم هتعلنيا وحنك كنا قاني ما أها إنا تلاهان رنتي أدبا يديكم هتعلنيا وكو لبا ده كلي هذا بين شيء سنة بين قرح بدن بعض الشيء أو لقى سوق شقيقي أو
ma garanaysaa hareeraha laga galayo war hebelow saasaan dhihi doonay adiguna in markhaati furiyo waxbaa la yidhaahdaa mug laakiin weerarka cad ee la igu soo qaaday maalinta caddaanka ah ee cadceedda soo jeeda ummaddu wada arkaysa waxaas ayaan dara ah saddexdii fanaan ee waxbuu ku sameeyey lalahaa ama waxbuu ka yeelay lalahaa dhagihiinana waad ku aragteen waad ku maqasheen indhihiinana waad ku aragteen hadday wax ka jireen iyo hadday waxba ka jirinba isha macalina inaan ku noqdo uma baahno war xumow laguwaa balse hadda waxaan ka hadlay barnaamijkan aad arkaysaan idinku videohan baad ku baraarugteen laakiin arrintaani 5 bilood bay socotaa waa 5 months way socotaa arrintan 5 bilood ayay socotaa ha socotay ee waddankan Canada aan waxaan imid 2010 maantana waxaa la joogaa 2018 waa 8 sanadood 8 sanadood waxaan dalkan ugu imiday fanaaniin caan ah oo ummad Soomaaliyeed ku caan si sharaf leh soo dhaweeyeen si sharaf leh ugu dhex jiraa si sharaf leh wuxuu wada shaqeynayay si sharaf leh wada dhaqmayay dibdan Canada kama jirin dibdan Canada kama jirin buuq ma lahayn waddan degan buu ahaa fanaaniintu saaxiib yihiin walaalayihiin aad isku ixtiraamaan balse virus baana soo galay ay ila garan doonaan dadka Mareykanka degan Minneapolis baa si fiican ila yaqaan virus farxun baana soo galay videohan aad arkaysayna video ku talagal loo duubay waxa shakadu ka soo bilaabmatay Cawaale Soomaali ma hadda warkayga si fiican u dhageysta Cawaale Soomaali ma aha barta dagaalka Korea waa 5 bilood kahor dagahan ka xidhay dagaha yaan ka xidhay nin family man aan ahay nin carruur wadda ku korsadaan ahay nin mustaqbal raadsanayaan ahay nin buuq iyo dagaal iyo waxaan u joogay nin fanaan weyn ah oo magac maanta u dhiman aysan jirin baan ahay shib baan kay waxaa dhacay Cawaale waxaan farxumo baa laga faa'iiday in dagaha ka xidho waxaa la yidhi hal way waa laga soo socday kuwa kale la daadi waa hal way kuwa kale la daadi waa hal way waxaa la sameeyay Facebook la galay page baa magacayga lagu furtay waxaa lagu soo qoray xaaskiiba iga xanuunsanayse igu soo duceeyay wada aragteen waa wada sheekayseen believe it or not anigu page ka mali xaaskayguna ma xanuunsan wayna caafimaad qabtaa cidda waxaad qoraysana ba cidda ilaa hadda hawlaha wada waan hawlo wada dhaya waa ilaa dhowr iyo 10 qof oo hawsha wada xaaskayga baa la yidhi way bugtaa igu soo duceeyay shib baan ka yidhi dhagaan xidhay waa laga yimid waxaa loo soo qoray hooyadii baa dhimatay ee igu soo duceeyay hooyadii way iska nooshahay wayna caafimaad qabtaa ma dhiman waxaasoo dhan juqayn inaan hadla ah bay ahayd waa sahal way dhagahan ka xidhay waxaa la yidhi Cawaala buka oo xabad baa sumeeyey xabad kama jirto aniga xabad 20 sano iyo walaalana xabad wanin maanta aan arkay inuu hooyadii dhashay yaan arkaa waxaa la yidhi isaga sumeeyey shib baan kay wixii oo dhan markaan ka hadli waayay la yidhi ninkaan ma hadlaye maxaa samaynaa waxaa la yidhi waa inaan video duubno oo weliba odhanno meeshaad degantiid baan kugu imanaynaa aan kula dagaalamayna markhaatina wadatiin in fanaan weyn aan ahay nin waddankan imid anoo dhowr iyo 40 heesood laan Canada imid aan nin hees u baahan meehi heesaha ayaan dib u bixbixiyaan dhalinyarada kuwaygan dib u siiya ma ifaan marka sheekadan waxa weey sheeko fan ku socota ma ahayn waa sheeko eriyad qof ku mashquul eriyo oo waliba loo ilaa dhowr iyo 10 qof baa sheekadan wada hal idin juqajuqeeya waa hal way ilaa hadda baa laga leeyahay hadalna laygama heli doono kusi nin weyn baan ahay hadalkan idhaahdo ana dhibca ku waayay ilaa hadda aan hadal xun oran maayo balse Soomaali Maxamedi indhihiinu ha furnaado virus waalan baana soo galay waas laga bixi sida Mareykan booga baxeen baan uga baxnaa insha Allah taala afkaygu waa daboolan yahay af daboola waa dahab idinkana aad baan idinku mahadcelinayaa waxaad igu taqaaneen wanaag buu ahaa wanaagii baad iigu fadhinaysiin weligiina alif wanaagaas baad iiga fadhinaysiin waxa wanaag ahayn iigama fadhinaysiin qof ma duro qof ma eriyo afkaygu uu gaaban yahay afgaabnida aad igu taqaaneen baan weligay ahaanaya eri qaldan igama soo baxayo balse 13 sanaan jira waana sii jiri doonaa aad baan islaamay
ودمبين رجينا إنسان رسول وحنو شيء عوالة آذن مقالة نسل دقن هاني ومدنا دبكم هايو رجينا ماشي فوق جو حشودة هذا اللي دبس كل نقط وأنا كربان إن كلا صعنا وحربه waxaan leeyahay fanaanka inuu xishoodo waaye oo isgartaa marka xaagashada aa wadaan joojiye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu